بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaan jeclahay in kalimaadka idhaahdo mawduuca walaalkay sheegay waana bixiyey aalaamun wa aamaal. aalaamta ama waxyaabaha dhibaatooyinka maanta dadka muslimiinta haysta iyo rajada la qabo, waxa la rajaynayo. islaamku wuxuu soo taxnaa haatan marka laga soo bilaabo cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti aada u badan, 1400 iyo dheeraad sano ayuu soo jiray. duruufaad kala gedisanna wuu la soo kulmay, laakiin waxaynu odhan karnaa casrigu ugu liisay ama qarniga ugu madow taariikhda islaamiga waa qarniga kan aynu noolnay. marka taariikhda islaamiga oo dhan dhammaanteed la daraaseeyo, qarniga ugu madow ee muslimiinta ay noolaayeen waa kan aynu maanta joogno. sababtuna waxay tahay muslimiinta may soo marin cahdi aanay jirin khilaafo islaamiya. waa jirtay marar khilaafada islaamiga ay daciif ahayd ee leeyahay, waa jirtay marar ay xoog badnay, laakiin waxaad moodaa qarniga kan inay gaadhay wakti aanay jirin khilaafo islaamiya. taasi waxay sababsadeen odhan karnaa inay caalamka ka muuqdaan dadkii muslimiinta ahaa oo aada moodo agoon ama sarrakay, meel kasta yeydu ay ku booqtay. caalamka haddaad u fiirsato maanta, meel kastoo laga ooyayaba muslim baa degan, dhibaataduna aada bay ugu tiro badantay. laakiin ummadaha taariikhdooda marka la derso, maaha wax mar qura dhaca. uma taagnayd maalin kaliya ma wada dunto, ummadaan taagnayna maalin qura ma wada dhisanto. waxaan leenahay dibu socodkan ama dibu dhacan dadka muslimiinta maanta haysta muddo ayuu ku socday, oo islaamkoodii kolba in hilmaamayana mase ka tegaya. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya. gaalada baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala, haddaad sabirtaan oo alla ka cabsataan, yacni haddaad raacdaan ariiqa alla subxaana watacaala idiin soo dejiye waxba idin yeeli kari maayaan baa ilahay. laakiin haddaad ka weecataan, waxaa weydeen markaasi xijaabkii amase wixii idinka mancinayey dhibaatooyinka. waxaa markaasi bilaabmaya inxitaafkiina amase burburkiina. waxaan jeclaa inaan taariikhda u yar dib ugu noqdo, waayo taariikhdu waa lilcibra, waa dariska umamku ay wax ku qaataan. inaan dib ugu yaro noqdo taariikhda muslimiinta ka qarniga kan oo keliya, qarnigan aynu joogno oo qura. sidaa taariikhda ku wada haysaan waxa dhacay qarnigan qarnigii ka horeeyey dunida reer galbeedka oo christianity inay isugu tagtay inay qaybsato caalamka saddexaad, waxay maanta u bixiyeen oo muslimiin markaasi ahaa. waxaa bilaabmay cahdigii isticmaarka markaa, oo lagu talagalay in la gumaysto dadka muslimiinta ah. cahdiga isticmaarka waxaa la socday in loo tashaday in la burburiyo khilaafadii islaamka ee ugu dambeysay. dowladdii ugu dambeysay ee khilaafo islaamiga kasii taliso waxay ka jiri jirtay wadanka maanta turkiya la yidhaahdo addawla alcuthmaaniya, laakiin waxay ku baahsanayd caalamulislaami intiisa kaloo dhan, masr, suudaan, shaam, waxaan oo dhan iyadaa ka tirin jirtay. isticmaarkii wuxuu wadaba dowladdaasi waa la tirtiray. waxaan jeclay markaasi inaan turkiya taariikhdeeda in yar idinka tilmaamo. sababta waxay tahay waa markaskii ugu dambeeyey ee markaasi uu ka taliyo talis islaamiya.
waxaad ku qiyaas qaadan kartaa haddii markaskii uu caynkaa u ekaado meelaha kale wixii ka dhacay ama wixii loogu tashaday ayaa tusaale uga qaadan kartaa. reer galbeed mu'aamaraad bay muddo wadeen ah inay inqilaabaan dowladda islaamiga meeshaas ka jirta. ficlanna inqilaab bay ku dhigeen. inqilaabkaasi uu hogaaminayo nima iyagu soo tababareen oo loo bixiyey magac la yidhaha Mustafa Kamal Ataturk. inqilaabkani wuxuu dhacay kadib markii uu heshiis la galay reer galbeed isagoo diray ninkii la odhan jiray Cismat Anunu. heshiiskaasi waa mucaahadaad macruufa, waa heshiiska loo yaqaano mucaahadatu Lausanne. Lausanne waa Lausiana baa filaya magaalada Switzerland ka tirsan. mucaahadada waxaa wadagelayay qoladan waxay inqilaabaysa askartee turkida ah iyo wasiiru khaarijiyihii ingiriiska markaas iyo Kazun lo odhan jiray. waxay socotay November 1922 ilaa January 1923. hore ayaa marka horeba loo eriyey khilaafadii islaamiga ahayd oo Sultan Abdulhamid 1909 Abriil ayaa la inqilaabay lagana saaray wadanka. laakiin laguma dhawaaqin in khilaafadii duntay nin kalun bay saareen magacu yaala. mucaahadadaas waxaa lagula galay 4 ballan. 4taa hadduu fuliyo in inqilaabkiisu uu soconayo, in dowladdaasi markaa waxa dhibaato dhaqaale haysto oo dhan reer galbeed ay xalili doonaan. 4 sharti ee laga qaaday ama 4 ballan baa laga qaaday. mucaahadadu 4 rukun ay ka koobnayd waa kuwa kan. waxaa la yidhi kow inaad khilaafo islaamiya baabiiso, inaanan dib u maqal kitaab iyo sunna wax lagu xukumo. waxaad doontay kala qaado markaa, laakiin inay baaba'do kitaab iyo sunna inay wax xukumaan. inuu ka hortago ama se uu taxqiiq ku sameeyo, inuu dabar gooyo wax allaaliyo wixii muxaawala ama isku day ee lagu sameeyo in lagu soo celiyo khilaafadii islaamiga ahaa. inuu intaa kasii fogaado uu isku dayo shacaa'irta islaamiga, salaada, soonka, xajka, waxaas inuu tirtiro. inuu qaato qaanuunka reer galbeed, hadday tahay nidaam dastuuriya, hadday tahay nidaam qaanuuniyaba, in lagu dhaqmo wadankaasi qaanuunka reer galbeed in la qaato. 4taa sharti markaad qaadato bay yidhaahdeen baanu ogol lahay inaanu taageero dhammaystiran ku siino. wuxuu qaatay 4tii sharti. March 3 1924 ayaa markaasi inqilaab lagu sameeyey dowladdii islaamiga ahayd. waxaana la cadeeyey fikradda maanta loo yaqaano jamhuuriyadda Turkiya. fikradda jamhuuriga maalintaas baa la bilaabay, waa 70 sano ka hor. muxuu sameeyey markaa? wuxuu isku dayey markii ugu horeysayba maxaakimtii sharciga ahayd iyo awqaaftii islaamiga ahayd buu baabi'iyey. 1925 markay maraysay buu qaanuun soo saaray mamnuucaya zayiga islaamiga ah dhammaantii. gabadhu inay xijaabato, ninku inuu koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasi qaato, waxaasi oo dhan mamnuucaya. dadkao dhan waxaa waajib lagaga dhigay inay qaataan zayiga reer galbeedka. qabcada, koofiyaddan yare cowboyga ama noocaasi in la xidho oo tan yare islaamiga ee la qaadan karaa ay mamnuuctay. wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya markaasi in la joojiyo assalaamu calaykum dadku inay isku salaamaan. alinxinaa baa laisku salaami karaa buu leeyahy, sida reer galbeedka in madaxa laisu yaro fororiyo kaas bay salaatu noqonaysaa buu leeyahy. amase qabcada inaad kor u qaado, koofiyadda yare madaxa la saaro, wase iyagu isu salaamaan, inaad ama koofiyadda madaxa ka qaado ama aada madaxa hoos u dhigto. 1928 ba haddana qaanuun kala soo saaray oo sheegaya inay mamnuuc tahay in la dhigo shareecada islaamiga ah. isla markaasi wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya inay mamnuuc tahay qur-aanka in la bartaa. wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay afka carbeed in lagu adiba. wuxuu soo saaray inay rag iyo dumarku dhaxalka ka siman yihiin. wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay nidaamka tacadud zawjaat, in ninku dhowr dumar uu guursan karo. wuxuu soo saaray markaasi afka turkiga oo u qormi jiray xagga af carabiga, yani alfabetska xurufta u isticmaalaan xagga af carabiga ay ahaan jirtay, wuu mutirtiray oo wuxuu u bedelay xagga afka laatiiniga inay u socoto. wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya maalinta jimce inay maalin shaqo tahay ee aan maalin jimco fasax aanu jirin,
maalinta axaddu inay noqoto markaasi maalinta dadku ay fasaxayeen. turkiya waxaa ku dhacday markaasi 20 iyo dhowr sannadood buu mamnuuc ahaa qof turkiya in laga maqlo xaj baan tegaya. 20 iyo dhowr sannadood ayaa mamnuuc waxa ahaa qof muslima oo turkiya inay dhacdo inuu yidhaahdo xaj baan tegaya aan cidina kasoo xaj tegin. wuxuu bilaabay in xataa la yidhaahdo aadaanku allahu akbar in lagu aadimaa ma banaana. taanri ula dur waa in la yidhaha inta meesha la istaago waa ilaahay baa weyn af turkiya. axad al-a'imma imaam ka mida aimada turkigan maalin la kulmay markaasuu iga warramay qisada meesha ka jirtay. sheeku markaa ii sheegay aada u ariifa. wuxuu yidhi markii uu soo rogay in afka turkiga lagu tukado salaada la gelaya halkii dadku ay ka akrinayeen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin af soomaaliya lagu akrinaya yani waxaa lagu akrinaya af turki. ilaahay baa weyn waa inuu qofka bilaabo yani tarjumadii suuradda waa inuu akriyaa ee inuu iyada akriyaa waa mamnuuc. wuxuu yidhi masaajidkii ugu weynaa magaalada baa lasoo galay dadkii baa safafkii salaadii isbaxay dabeetana salaadii baa la xidhay. salaada markii la xidhay ayaa imaamkii de halkii laga sugayay takbiiratulixraamki inuu dadka maqashiyo allahu akbar inuu yidhaahdo ayuu wuxuu yidhi buu yidhi taanri ula dur ayuu ku xidhay buu yidhi. dadkii markay arkeen meeshan sida loo tukanayo qofba marubu maradiisa qaato labadiisa kabood ka qaato waa iska baxeen. markuu salaamo naqsaday buu yidhi assalaamu calaykum ma jirto gunaydin malaklarin buu yidhi inta xagga eegay waa af turki gunaydin malaklarin weedhaa markuu yidhaho xagga eegay buu eegay mise masaajidkaba xagga cidi kuma jirto. gunaydin malaklarin buu yidhi xagga kaloo eego masaajidkaba cidi ma joogto. 20 iyo dhowr sannadood baan markaa turkiya masaajid jamaaca cidi isugu imanin muddo ku dhadhow oo marka ay noqotay ninka raba inuu salaad tukado dee inuu gurigiisa ku tukado. waxaa dhacay masaajidkii ugu weynaa ee waddanka ku yaalay wuxuu u bedelay matxaf museum akbar masjid waddanka ku yaalla ugu quruxda badnaa waxaa loo bedelay matxaf meel museum oo dadka ay wax ku daawadaan. waxaa laga mamnuucay markaasi in salaada lagu tukado ilaa maantana waa ka mamnuuc. ilaa maantadan aynu joogno akbar masjid fi turkiya waa ka mamnuuc ilaa hadda in salaad lagu tukada. waa matxaf la dhigo madaxyada dadkii hore iyo turkidii hore iyayda caabudi jirtay iyo wax la nooca taariikhdoodii la dhigo oo dadku markaasi ay u yimaadaan oo tasawirtaan oo laga baxo. waa meel museum oo tuuristku ay galaan. isku dayay inuu culamada muslimiinta o dhan isugu yeedho ee turkida ahaa dabeetana inay saxeexaan waxa uu sheegayo ay dadka yidhaahdaan waa sax. markay diideenna madaxu ka guray firdhadkoodii in yarbaa masar iyo meelaha u kala carabtay wixii kale markaasi wuu tumay. haddii qalbi alcaalami alislaami meeshii islaamka looga talinayo marka sidaa loo galay maxaad u malaynaysaa dhulkii kale inay sidee yihiin? waxaa dhacay masalan fi sabciinaat toddobaatanadii sida sheekh cabdalla cazaam uu tilmaamayo toddobaatanadii baa waxaa dhacday sheekha la yidhahdo amin siraaj waa masjidka masjid alfatix maxamed alfatix ninkii istanbul furtay masjidka loogu magac daray weyn ee ku yaalla magaalada istanbul. sheekha imaamka ka ah mase tuki mudariska ka ah ayaa toddobaatanaadkii waxay muslimiintu jeclaysteen maray rabeen in ay islaamkii lagu soo celiyo xukumka oo professor najmudiin arbakan ninka la yidhaahdo xisbigiisii markuu meesha u sharaxnaa ayaa waxaa la yidhi ninkan imaamka muslimiinta o dhan meesha wax ugu dhiga dadka muslimiinta aday codka ku siinayaan aad islaamka dadka ku xukuntida ku soo celi jiday sharax markaasu diiday ma sharaxaya buu yidhi anigu ma gelayo baabkan. markii dambuu ooyey say dadkii ugu qasbayeen waxaa la isweydiiyey marka war imaamkii muslimiinta ninkii sheekha ee dadka wuxuu dhigay maxaa ka oohiyey? sheekuu markaa ka sheekeeyey wuxuu ihi waryaadhahe iska kay daaye oo ii daaya wixii aabbahay uu iigu talagalay. anigoo yar buu yidhi baa aabbahay qur-aanka i baray oo i qaybsiiyey si aan dadka u baro
laakiin buu yidhi aabbahay dhibtii ka qabsatay maalintuu qur-aanka ay barayay waa nin weyn isagu marka waa da-dii markuu yaryaray waxaan soo gaadhay wada mamnuuca aabbahay buu yidhi maalintuu qur-aanka ay barayay isagoo guriga iyaga igu dhiga buu yidhi ayuu iga qarin jiray hooyada iyo walaaladay habeenkii markaanu seexana buu yidhi habeenka badtago ayuu aabbahay saqda dhexey toosin jiray buu yidhi dabeetana intuu ila duso ayuu qol gaara igu xidhan jiray qolkaasi igu dhigi jiray inta reerku hurdo wuxuu aabbahay sidaa igu dhigayay buu yidhi inaan dadka ana qur-aanka baro aanu qur-aankaasi hallaabay saqda dhexe waxaa aabbahay ii toosinayay ee hooyada iyo walaalada in layga qarinayay inaan isku dayo inaan dadka qur-aanka bara aniguna oo aanan muhiimadaasi ka tegin taas baa aabbahay ii tarangareeyey ama se uu ii tababaray ee ii dhaafa buu lahaataa waxaynu garan karnaa sida cilmaaninimadu ay ugu talax tagtay wadankaasi fi sabciinaat masalan professor najuunudiin arbakan ninka la yidhaahdo iyo xisbigiisa markii maxkamadda la taagayey ee inqilaabka caskarigii intuu dhacay la qabqabtay ee maxkamadda la taagay yani waxaa la arkay inay turkiya islaam kusoo noqonayso naata ka qayb gashay baa la yidhahdaa caawintii in inqilaabkaasi dhaco nimankii odhan jiray dimuqraadiyadaanu wadnaa tacadud alxisaab baanu rabnaa kan baanu rabnaa ayaa markay muuqatay in islaamu soo noqonayo ka qayb galeen dabeetana waxaa dhacay inqilaabku markuu dhacay dib loo qabsaday ayaa professor najmudiin arbakan ninka la yidhahdaa maxkamad la taagay maxaa lagu maxkamadaynaya adigoo siyaasiyo baa la yidhi baa dadka hortiisa ku tukatay maxkamadda koowaad waxay tahay yani mabda'i cilmaaninimada ee ahaa in diinta iyo la kala saaro dowladda baad ka hortimid idan waxaad ku tukatay amaama annaas baad salaad ku tukatay iyadoo aan kuu banaanayn inaad ku tukato asheekh cabdalla cazaam raximahullah ayaa wuxuu leeyahy 69kii buu yidhi isagoo ka mida markaa shabaabkii la dagaalamayey yahuudda ayaa waxa dhacay buu yidhi waxaa noo yimi nin suxufiya oo muslima oo macruufa oo maxamed shawkat la yidhaahdo waktigaasina buu yidhi waxaa tegayey wadanka sacuudiga sulayman dimriyan waa ninka imika madaxweynaha ka ah wadanka turkiga oo wasiira ayaa sacuudiga tegayey si uu mucaahada iqtisaadiya ula soo xidho dabeetana demriyal wuxuu rabay ama ninka sulayman demri la yidhaahdaa inuu cimraysto laakiin bisharti buu yidhi waa inaan wax kamara sita iyo wax suxufiya iyo waxba soono inaanay meesha imanin markaan cimraysanayo ninka suxufiga markaa wuxuu leeyahay wax lacag baan bixinayaa cidda soo sheegta nin siyaasiya oo turkiya oo xaj maradii xidhan suurada ahun keena yani ixraam mara ah xidhay suuradun keena ama kacbo ku wareegaya ama meel lamida jooga waxaan leenahay caalam alislaami turkiya lama gumaysanin ee waxaa loo bedelay nidaamkeedii nidaamka intii kalena waa la gumaysay inta kale waxay u bixiyeen tarikatu rajulin mariid waxay dhahaan dhaxalkii ninka bukay caalam alislaami dee markaa cusmaaniyiinta xukumi jirtay marka isagii dowladiisi caynka loo galay intii kalena waxay dhahaan waa dhaxalkii dadka bukay oo yuruba qaybsatay ninba inbuu gumaysto u kaxaysta mustafa kamal ataturk waa iska dhintay inkastoo si fool xunle uu dhintay waxaa turkiya dib loo ogolaaday in salaad si caadiya loo tukado 1950kii 1950kii waxaa soo baxay nin la yidhaahdo cadnaan mandris oo ra-iisul wasaare ka noqday wadankaas xisbi alcadaala xisbi la yidhahdo hogaamin jiray dabeetana isagoo loolankii doorashooyinka iyo waxaasi ku jira oo dayaarad fuushan ayaa dayaaradii la halligantay dayaaradii markay halligmaysay oo cirka la marayo ayuu ninkii rubaanka ahaa ama krugii dayaaradda watay ayaa waxay dhaheen dayaaradda tani way dhacaysaa waa in la gashadaa qamsaan najaat aladan yani qalabkan laysku ilaaliyo ee kuraasta hoostooda ku jiriyo waxa kan qof waliba waa inuu wixiisa xidhaa waa in loo diyaar garooba yani dhicitaan cadnaan madras waxaa laga sheegaa wuxuu yihi markaas baan nadray markaasaa waxaan ku nadray buu yihi ilaahayow haddaad maanta shilkaasi iga badbaadiso oo turkiya mar uun madaxnimadeedu gacantayda ay soo gasho
إن الإسلام كعليه ديردي ويها لاجنت وحلالية وحي كتير إن حبضي كما بحسنين إلهي سعدنا المدرسة نبقلي كل جيبا كان نبقلي وإلهي سبحانه وتعالى في خارق بلو نبقلي عدنا المدرسة قربا نبقلي إن الله لي انتي كلا ديرد صاحرين نوينوات markuu nabad galay buu isku dayay inuu ballankiisa Ilaahay uu la qaaday uu fuliyo wuxuu ballan qaaday markaas waxa axjaabta markay saraxayso barnaamijkeeda wax qabad bay soo bandhigtaa bal u fiirso dadkan halka islaamnimada laga gaarsiiyay ninkan barnaamijka wax qabada uu soo bandhigayo wuxuu leeyahay dadkii haddaan meesha qabsado waxaan ogolaan doonaa in af carabiga lagu aadimo haddaan meesha qabsado buu leeyahay waxaan ogolaan doonaa in malcaamadihii la furo quraanka la dhigto dugsi quraanna in la furo haddaan meesha qabsado buu leeyahay masaajidkii weynaa ee Sofia la odhan jiray ee matxafka laga dhigay masjid baan dib ugu celinaya nuqaadka caynkaasi ahaa barnaamijkiisa siyaasiga ninka kani watay maca dalik shacabku siday ugu hoylanaayeen qof mar uun islaam wax la yiraahdo u sheega isaga ugu riday dabeetana uu ku guulay wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii wadanka ramadaantii koowaad markaasi ayuu dadka wuxuu ugu bushaareeyay oo u ogolaaday ramadaanta tani markay bilaabanto in suuqyada aadimo iyadoo lagu aadimayo afka carbeed رمضان مركي بشي اللي أركيب آذان في بلاد من مركا الله أكبر الله أكبر فعلى إلى هذا غير اسطنبول مالنتا سيسيدا يو إلميين فرحات دراجي فرحوا دا سوح الله مدها كي مالنتي إلا فرطي اسطنبول مالنتي إلا فرطي سيدا يو فرحيين وكرابا يو فرح سنايين بالله إلى هذا غير قلبي لكن قضية ذلك aad bay u dhigtay wadanka cilmaanimada bareen ay rabeen inuu caalamka islaami horiyaal u ahaado ay rabeen inuu noqdo tusaale lagu daydo sida uu dhaqmay inay kuwa kalena u dhaqmaan inuu maanta haddana dib islaamnimo ugu noqdo aad bay u dhigtay markiiba inqilaab baa la dabaray inqilaabkii markii la dabarayna ninkii waa la qabtay adnaan majlis maxkamad baa la taagay lagu eedeynayo alkhiyana alcudma wa mukhalafat ad-dastuur iyadoo lagu eedeynayo inuu galay الخيانة العظمى خيانة وين نودن كوجستي إيوه دستور كي ومضى إنه خلافي دبتنا واحد لقوا قاضي الدين وهي وسو كهرين أركتدير القلبان يلا كي وسعتي إلا ما أنت لما أقبل مرنا بعالم الإسلامي إنه كصب بريقام ميلا أورانكره dadkaasi si xor ah bay rabaan inay islaamkooda u tabaqaan oo isugu xukumaan markastaba reer galbeed wuxuu xoojinayay cidda rabta inaan wax lagu xukumin islaamka cidda rabta inaan kitaabka iyo sunnadu soo noqonin dagaalka nooca kali ma aha dagaal meel qura ku kooban waa caalam islaami dhammaantii oo dhan baan odhan karaa waxa kaaga filan mustashaaru bayt al-abyad guriga cad Mareykan ninkii la taliya qaanuuniga ka ahaan jiray Brzezinski ayaa la oran jiray Brzezinski baa hadlay waa Washington Post ba qoray markaas wuxuu leeyahay idaarada Mareykan waxa ay dareemaysaa qalaq aad baalig oo abulay warwar weyn bay dareemaysaa dhaqdhaqaaqa islaamiga soo tira batay caalamka ku faafaya daraaddeed sababtuna waxay tahay buu leeyahay لأن أمريكا حريصة على عدم السماح للإسلام أن يلعب دورا مؤثرا في السياسة الدولية أفغانستان مركي دقالده كسعنيين جهاتكم أي واحد يسكدها يعني بل إنه وضاع بسن له قاده لما مدحوينه يسكد بدر مريكمكم كارتر با سجي كدي مركزا نقضي بعدنا نيكسون لودر نيكسون با كدي بس سجي أو ضاع بصايده نيكسون با صار نقضي وحقب في مركزي بابليك بريس بوغا ورياشي سؤالي ويديني المكة وحلا ويديني مشكلات العالم كثيرة كون رمضان لي بروبلم كمين هبلاية كثيرة اتنات بروبلم بوغو شوابا في اللي ويديه بس عشان مشكلات ما هبو يدعنا ما كده بقى وحلا ويديه سؤال ورغي صحابه وعم حين مشكلات ده وضغط صوريسا
وحيل مشكلة دوغوين ايشر ساوحة ويان اسلام كسر نقضى برية مشكلة دوغوين ان اكبر عقبة بولي تواجهنا هي الاسلام إذا كده قوينا ما أمريكا هرتع على أبولي هو السلام وحانا واجب أبولي إلينا إلا ونخ خلافات في النبي الراشين كي نود حيي شيء نوغو هرتقنا زحفي كان أما الضعف كان إسلامي يصوص على شيء نوغو هرتقنا وحينا كغفلا ما أنت أي عالم كوحة كسعره وزير خارجية فليانيقا يقول الناس مركا وزير خارجية ويأتي ألا ويجي ورنسا وروارته بعض هو تنقل سكتي ناس محايس كوهيسا حان ناس اللي قفليا هدي وحي اللي قهر جينا يسكتي محال اللي قفليا بالي للناس وحكوتي وابي واحد نوهيسا للمسلمين ناس يعني الدور كلي ما انت عيار السواء هنا يكوهر سكتدك المسلمين فا كيفيك فرانسيسك هيكوات ayaa waxa ka hadlay wasiir kharijiye Faransiiska hore ahdigii dadkaadintii wasiir kharijiye ka ahaan jiray John Francois waa la yiraahdo markuu hadlay ayuu wuxuu leeyahay waxa jirta buu heshiis sirriya oo u dhaxeeya dowladda reer galbeed iyo Serbia oo ku saabsan in Serbia wado in la dabar gooyo dadka Bosniyiinta muslimka iyadoo waliba caawimada ay bixinayso buu leeyahay Umam al-Mutaxida خارج قلبك الدول كودنا وين يلي مع دانقرة الاحتجاج والتمجيد والتهديد بالتدخل إن كل بجوديان إلى هو سفر الجلين هدين كدين أما وحنا كقبانينا يقولون أنت وين أنا دافن دوري هشيس أو وزير خارجية فرنسيس وهنشري يا وحلي هشيس باكرة في القلبات يصير بيكد حية والشيء يوم يصير بينكو عند السران ضد المسلمين في بوسنيا كلهم إسلام مركزين يونايتد نيشن كنا وكوك علمية خير قلبات كنا إني كاجنادان المسألة ورانيسا هدان لشوتين وحاسي وسفر الجلينينا waxaad tusaale kale idinku filan Schwarz ninka la yiraahdo oo nin Jarmal ah ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee masiixiga Jarmal CDU xisbiga xukuumadda wadanka Germany kamid ah cudwi baarlamaanka wadanka Jarmal ka tirsan ayaa wuxuu ka hadlay maqaal buu wuxuu tagay Serbia iyo meesha muslimiinta Bosnia lagu xaqo oo soo noqday dabeetana maqaal buu qoray مقالك جريدة قرأ وحلو بحي ذلك كله رأيته بعيني وحن شيء يودني شيئا كسوارك يبالي را عنوانك مقالك ومحي وحويشي سكسوارك وحولي وحان الكيميلير وعن صدح بلوتشرين ولا بدأ دقود يستنك الله شري إن الدلو قفك وابا الشيء لكن وحولي ويلير صدح بلوتشرين ومسلمة والله شري اللي بدأ دقود يستنك وانا الكيميلير waxaan kaybuuri hooyooyinka uurka leh oo beerkooda inta la dilaaciyo waxa uurkooda ku jira laga soo saarayo waxaan arkay buulay odayaal rag iyo dad nooc walba leh oo sida xoolaha loo gowracay buulay min alwariid ila alwariid dhagta ila dhagta kale inta la isu gaarsiiyay gowrac bira wanin kristaan oo reer galbeed nin kale waxaan baan sheegay ku soo arkay waxaan arkay buulay dumar badan oo lagu xadgudbay oo aanay ka hadhin umulkoodii ama inay dhalaan toddobaad wax ka yari waxaan arkay buulay suwar aad u tiro badan loo fadiica oo aanu soo bandhigin buulay TV-ga reer galbeed mar laba iyo ka baritoona وأتحدى إن كانت عند هؤلاء الجرأة والشجاعة لبطيها بولي وحنا كجودين يا بولي عرّ هذا ركتيه للرجل من يدك شرت بولي تيجي مع كسر بحان وحن صار كي واقع كثيرة وحنا ركيبولي صورة أنا أول جاي لا بيني حد بيجاد إلا إذا ويل يربي قفتن سيربي مركزي الدبين مركز الدبين أيه هنا كيسي أبيه وقوقوين غير قصة قعن وأبيه انت اللي الدبي سجع أيه أبيه اللي لا يقصب قعن
dabeetana odaygana markaasee la dilo laga takhalus. caalamka maanta jooga kaas baa ka jirta, caalamka maanta jooga kaas baa ka jirta. qoladii xuquuqul bini aadamka u doodaysana weli waa maqan. islaamka iyo dhibaatooyinka lagu hayo kashmiir maanta كان الاختلاف والرمي وحلا يدك مسلمين في كشمير دجال مركا لقفته محابس سودا اما دك كان سوق شغل صوروريو بان الكيبيله ولا جايين مستشفيات كان اختربه ميل با لو كيدنيا waxa loo haystaa bilay human spare part bay dhakhtarka kii loo baahda kan baa laga soo saaraya ka wadna u baahda halka laga soo saaraya ka ilu baahda halka laga soo saaraya waa human spare part baa loo hayaa bulay inta meel lagu ururiyay ayay markaasi dayactir qalabka dayactirka ee lagu dayactirayo dadkan buka ee dhakhtarada ku jira. waxaad garan kartaa ummadaasi meesha la gaarsiiyey في سنة هوري 93 TV-ga CNN kan furay barnaamij ay kaga waramaan wariyaasha lagu doodsiiyo. markaasaa wariyaha International Correspondent of Daily iyo newspaper la yidhahdo Bakistaaniga ah Nayar Sharif ninka la yidhahdo wareysanayay. markaasuu wuxuu leeyahay ninkani waa CNN ka soo daynaya former chief of French intelligence buu leeyahay ninkii ahaa ninkii hogaamin jiray ciidanka sirdoonka ama mesela CIA oo kale Faransiiska ninkii hogaamiya ayaa buug qoray buu yidhi. buugga wuxuu ku qoray buu leeyahay fikradda kaga waramaya dagaalkii koowaad iyo labaad ee adduunku uu dhamaaday buu yidhi. waxa kaloo dhamaaday buu yidhi dagaalkii saddexaad ee adduunka oo ahaa Cold War-kii ama dagaalkii qabooba alxarb albaarida. waxaa bilaabmay buu isagu markaasi leeyahay dagaalkii afraad ee dunida. kaasina wuxuu inoo dhexeeyaa buu leeyahay innaga haddaynu reer galbeed nahay iyo dadka muslimiinta ah sida daraaddeed marnaba waa inaynan ilaabin inaynan losgaraynin ama si aan laynaga xoog badanin dagaalka kan. kaas waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa nimaan shaqaalo ahayn. suuradda tani waa John Major waa warqad uu qoray saynkiisii baa ku yaalla jaraa'idka caalamiga intooda badani way qoreen. suuradda tan John Major warqadan uu qorayo wuxuu u qorayaa Douglas Head wuxuu u qorayaa wasiirul khaarijiyiisa wuxuu kala hadlayaa qadiyadda uu kala hadlayo waxa kalifay baan odhan karaa inuu warqada tan qoro hadal ay jeedisay habartii ka horreysay isaga meesha haysatay. dumarku waxaad moodaa inay ka yara qalbi jilicsan yihiin ragga. Carter way sira adkaysan weyday waxaan Serbiya laga wado dabeetana intay khudbad sheegtay waxay leedahay Yurub aad bay foolxumo ugu tahay inay waxa kale meesha ka sii socdaan. kaasuu wuxuu ka cabsaday maadaama islaantu ay in badan ra'iisul wasaare soo ahayd maadaama xisbigooda conservative-ka ay magac ku dhex leedahay inay dadka badhu dhagteeda hadalkeedu uu dhagtooda ku dhici karo. marka wasiirul khaarijiyihiisiiba warqad u diraya warqadda uu diraya muxuu ku qoraya wuxuu leeyahay si fiican baan u ognahay in Giriiga iyo Raashenka iyo Bulgaariya ay hub iyo tababarba siiyaan Serbiyiinta. si fiican baan u ognahay buu leeyahay in Jarmalka iyo Austria iyo Slovenianka iyo Vaticanka boobka meeshu ka taliyo ay hub siiyaan iyo tababarba Croatianiska. waxaan kaloo ognahay buu leeyahay intaasoo dhan anagoo og sinaba laakiin uma banaana buu leeyahay inay muslimku wax helaan. sinaba uma banaana boosniyiinta muslimka ahi inay hub heli karto. wuxuu leeyahay macquul ma aha inaynu aqbalno wadnaha Yurub inay ka dhalato dowlad islaam oo abtirsata. hadalkiisa isagoo sii wata buu leeyahay gefkaan mar hore gallay inaan dib u gallo maaha buu leeyahay waxaan gaf gallay buu yidhi
مسلمين تمكن وقالنا إن أفغانستان كدقالمان الله دقال تقول راشي كلا شبيه مركز بأنه قفق الله يقولي سيدة درجة دينا انتنتي وقالك وقالنا مسلمين يتصور رسوله كدقالما تاسي مرنا ما مدعي كرتبولي جاليدها مسلم كنا البولي يرب وين انصارنا الرقابة أما إلالين حقن وين انصارنا إنه إيه إن إسلام كود يسد أفافير ما بنا نبو يلين الدنيا كثيرة مقع الله يقارنه بوسنيا أما البوسنك يهرس كم وضع الصعودة إنه كثيرا ماشا ما بنا نبو لي dadka muslimiinta meesha jooga bulay waxa la laayimo yani waxa kale waa in tahjiir lagu sameeyaa Yurubta kaliya meelaha waa in qaxoonti laga siiya laakiin meesha tan waa inaan isku urursan aanay noqonin dawlad islaamiya Yurub bulay waxay ku degantay kristankeeda iyo qiyamka uu siinaya kristiyaanka akhlaaqdeedana way ku ilaashanaysaa ka muslimka Yurubna waxaan sheegayaa bulay inaanay awoodi karin ay cid kala caawiyaan waxaan kale u sheegayaa buu yiri muslimiinta Yurub inaanay u suurtagal ahayn dawladaha Yurub inay cinaadaan oo waxay doonayaan dawladda Yurub inay ka hortagaan waa warqad official letter oo uu qorayo ra'iisul wasaare wadan kamida Yurub xukuma oo u dirayo wasiir khaarijiyihiisa waa official letter sign-kiisa wada signature-kiisa international ina loo faafiyay kadib markii ay xadeen qoliyo kale ay taayaan waxaan uga jeedaa gaal hore waxay ugu tashatay inay dadka muslimiinta ah islaamka ka fogeeyaan waxay ugu tashadeen inaan dawlad islaamiya jirin kuwa meesha joogaan ay ku reebeen waa qaar iyagu wataan oo isla ogyihiin ma dhaamaan nimankan maryaa cadcad ee waaweyn sitaa wada taqaanin waa la nooc waxaan hubaa in badan oo maanta carabta ka talisa inuu siyaad barre ka fiicna laakiin siyaad barre dhaqaale badan baanu haysan oo dadka ku kala seexiyay in badan oo maanta magaca kula dunida carabeed baa ka liidato aswa sawa ka ceeb xun wuxuu sameeyay siyaad barre Soomaalida waxa laga yaabaa in siyaad barre ka wada caraysan laakiin caalam islaami waxa ka dhaca kama dhicin baan oran karaa wadanka Soomaaliya dadka noocaas iyo maanta muslim ka taliya مثلا waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan qaar baa diidan reer galbeed qadaafiga maqashaan ay kalb al-mas'uur iyagu u bixiyeen ayaa wuxuu tasriix buu bixinayay uu leeyahay muslimiinta buu yidhi Bosnia waa walaalahayo Serbia buu yidhi waa asxaabtayo wama fi daaci lilmashaakil buu yidhi markaa wax mashkilad keensadaana markaa ma jiraan niman aanu saaxiibaniyo qolaan walaalanahay un baa jira dilay wax mashkilad oo la isku mashquuliyaa ma jirto iyadoo ogtii Serbia inay geeska afraad ee Yurub leedahay ee ugu ballaaran ayaa Saddamka dadka baray u barooranayaan in leeyahay Saddam baa dunida isugu tagtay weli Serbia waa ninka qoray petrolka siiyay ahaa ilaa haddana reer galbeed ogol yihiin inuu siiyo caalam islaami waxaan oran karaa waa loo tashaday waxaanay ku tala galeen reer galbeed inuu sii baabo aan waxba ka soo noqonin laakiin tooda miya waxana taariikha waxaan u akhriyay inaan idin xasuusiyo caalamka waxa ka jira in yaro laakiin waxaan rajaynayaa inta idinku haystaan inay iga badan tahay laakiin waa tusaalayaal cayinaat aan farta jeclaa inaan idinku tilmaamo إلينا القرآن كهروق المامة وحلي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم حديدتك كالسوني دي مسلم كيه القرآن كوكو قبان هداي كوكو قبان آيات القرآن انت ندين خريابان كم مارمي لها وحان شيء يولد ويا آيات القرآن والنص صريحة ورب العالمين إليه إله الدنيا كفلين يا ولي الله سبحانه وتعالى محو قرآن كليه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب إلهي وحليه متع على كوة قالوا بي أهل الكتاب كي مشركين تكمدي أن ينزل عليكم من خير من ربكم حق عليهم خير دي كسر دقا متع على لما أنبئنا خير حتى هشان متع على إلهي إلهي سبحانه وتعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم بإلهي كوح كمد أهل الكتاب كوحي دوني سابا إلهي إلهي اللي كينو
inaydan weligiin dad jira noqonin oo magac iyo muuqaal leh ayay jecel yihiin baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala. sidaa ma ahaanaysa haddii taariikhdii maadiga ahayd ay taa noqotay oo caalamulislaami la gumaystay oo dowladdiisii ugu weyneyd la baabi'iyey oo intii ka soo hadhay iyaga gacanta hoos dhigato oo shacabkiina kuwii ay kaga yimaadeen markay nafta isugu geeyeen kii ku soo diray ay naf bideen, yacni kuwii kuwa ka mas-uulka ah baynu usoo cararoo naf bidnay markaynu ka yaabnay kuwii meeshii joogay. caalamulislaami markuu halkaa marayo mustaqbalku haddaba waa sidee? dadka badh bay u muuqataa inay quustaan markay maqlaan xaggan muslimiin baa lagu laayay, xaggan waa lagu laayay, xaggaa waa lagu laynaya, koodii waxba kuma haystaan, xaggan qaxoontay ka yihin, caalamkao dhan dhibaata ka jirta. maquus baa markaa ama dadka badh baa isweydiiya ilaahay subxaana watacaala muxuu dadka wax uga qaban waaye gaaladan u leehin waaye? awalan waxaan leeyahay nolosha saa ku socon maysa, wax badan baa isbedelaya. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay alam tara kayfa daraba allahu matala kalimata طayiba kashajaratin طayiba asluha saabit wafarcuha fi الsama tu'ti ukulaha biidni rabbiha wayadrib allahu lamhaala linnaasi lacalahum yatadakaruun. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala miyaad arkan ilaahay tusaalahaasu uga yeelay? tusaale ayaa alla subxaana watacaala wuxuu ka yeelay kelimada wanaagsan, kelimati tawxiid. waxa tusaale u ah baa ilaahay leeyahy sida geedka fiican ee siridiisuna dhulka ku aasan tahay, furuucdiisa iyo aqsaantiisu laamihiisuna ay cirka ku ganan yihiin, ee ilaahay subxaana watacaala idankii ku bixisa midhaheeda sanad walba, taasoo kale bay la mid tahay baa alla leeyahy kelimati tawxiid. markaasaa ilahay wuxuu leeyahy wayadribu allahu lamhaala linnaasi lacalahum yatadakaruun. ilaahay tusaalayaal buu dadka u yeelaya bal inay waantoobaan darteed. awalan waxaan leenahay mu'aamaraadka loo dhigay islaamka haddii ay jirto diin loo dhigi lahaa ama mabda' loo dhigi lahaa, waxa hubaal ah inaan dunida warqab lagaga soo gaadhin. mabda' ama diin mu'aamaro intaa leeg loo dhiga hadday caalamka ka jiri lahayd oo aan ahayn islaam, waxa hubantiya in waa hore laga takhallusi lahaa oo aan waxba ka jirin. laakiin xaqu saa kuma baaboo. ilaahay baa wuxuu leeyahy faama azabadu fayadhabu jufaa waama maa yanfacu annaas fayamkusu fi lard kadalika yadribu allahu lamhaal. ilaahay wuxuu leeyahy xoorku amase daad xoorku waa baaba'daa markiiba waa tagtaa, laakiin waxa hadha baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala waxa dadka anfacaya isagu waa hadhaa. kadalika yadribu allahu alamhaal. saasaa ilaahay subxaana watacaala tusaalayaal idinku yeelayaabaa alla leeyahy subxaana watacaala. waxaan leenahay marka mustaqbalka islaamkaas kale mubasharaad badan baanu haynaa. mubasharaadkaasi kuwa waaqaca nololeed iyo taariikheed laga soo dhimbil qaadanayo way leeyihin, kuwa nusuusta qur-aanka iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayaan labadabana way leeyihin. iyadoo sidaa muslimka loo galay ayaa maanta ixsaa'iyaadka caalamku haddana waxay leeyihin islaamka sidaa loo galay ayaa waxay leeyihin the most fast growing religion in the world is Islam. diinta ugu dhaqsahaya tirada badan ee dunida ku faafaysaa bay leeyihin haddana waa islaam. ixsaa'iyaadka caalamiga waxay leeyihin iyadoo islaamka sidaa loo galay, diinta ugu tirada badan leh ama dadka ugu badan ee diin qaata iyo faafitaanka ugu badan ee diineed waxa uu sameeye bay leeyihin islaamka. waaxid ka mida gaalada wuxuu leeyahay buugga buu yidhi dunida ugu daabacaada badan leh la daabacaa waa bibaleka buu yidhi. buugga ugu tirada badan leh ee dunida ay daabacdaa waa bibaleka, laakiin buu yidhi buugga ugu akhriska badan leh dunida yaallaa buu yidhi waa kitaabka qur-aanka ah. waxaa tusaale kuugu filan faafitaanka islaamku uu ku faafayo masalan dhul aanu hore u gaadhin, yurub uu ku faafayo, bale islaamka ay islaamayaan
culamadii reer galbeedka ugu waaweynaa qaybo ka mid waliba ahlil abxaad kuwa ah culamada waxbaadhe ee waaweyn researcherska maanta Yurub iyo Mareykan degan qaybo ka mid ay maanta si cad oo muuqata ay u islaamayaan waxa kugu daliila faafitaanku islaam ku faafayo mesela maanta North America oo aad moodo dadkii madooba inay si xoogan diintoodii dib ugu noqonayaan waxa kugu daliila aad ku garan kartaa bay leeyihiin islaamku maanta Yurub si ugu faafayo في باريس وحدها مقالة باريس اللي يبقى كلية واحد جنب قال إيه الله بقى يصبن كل أو قبضات أو مسلمة فرنسيسة وباريس كلية هما كفرنسيسة ونصي وجيت إسلامي قاقع في مقالة كلية واحد جنب بقول إيه الله بقى يصبن كل أو قبضات أو مسلمة ومسلمة waxay taasi cadaynaysaa bay leeyihiin sida uu faafayo islaamka waxay cadaynaysaa bay leeyihiin islaamka iyo sida uu faafayo inbicaaf alxarakaat alislaamiya nashaataadka islaamiga dib soo noqonaya oo ah bay leeyihiin dadkii muslimka hore u ahaan jiray oo iltijaamkoodu intii hore ka badanaya waxa muuqata bay leeyihiin caalam alislaami dadka maanta u soo noqonaya inay diinta haystaan والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلهي كل الجهالات حوله هذا يكب حين يعني إلهي تكي سكو عودان وبحثان دون عنده إلهي لكن حيكون نغن دونتا حصر يقول له المريد يكون نغن دونتا أخيرا نوى لقبه ليسان دون نكر سواحي نظهر عبدين إياه الإسلام كخلافة سنة الجنسية كل جبير يسأل نغن دونتا ها مثلا حديث الصحيح إمام أحمد يدارني أوليا عبد الله بن عمر بن العاص صحابي الله يرحمه أي سؤال لويدي وحل يري أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روميا وصحابي صحابي هو عهدي نبقى الرجل سوى قال نبقى الله دقال قال أما الله نورا أما سياركي صحابي كم سؤال بيويدي تابعين كدا بيسوح إليه أذيك إلهي الرسول كيسي سوى قال لبدا مقالك كيما نهر فرانينا لبدا مقالي لشيء مقرنسا ومقالة دائما كمقع عصب لا اسطنبول الله يلعبه أجي ورا مقع كان لما ورا سيريني إيوه اسطنبول أما اسطنبول نوى الله يلعبه يعني أبترك واحد كنت مقالة دي مسلمين مركز قصدين مسلمين تكجب اللو بحي هي الرومية وعاصمة الطليانية روما صحابي واحد لله لبدا مقالة ما نهر فرانينا مسلمين هي ما يهر قبصانيا اسطنبوليو هي روما دلتنا عبد الله بن عمرو بن عاص صندوق ولهابو يدو يري كان صندوق ايغا وفر كتاب كسوسار قرال دلتنا قرال كي مركو كسوسار ابو اخريه وحوري انغو النبي عليه الصلاه والسلام لا جوجنا او وحقورينا أي سؤالنا يويديني كان لو يديبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحلقوا لي أي المدينتين تفتحها أولا لبدا مقالك يبا نهر فرانينا إلهي الرسول كيسيو ما قسطنطينية نهر فرانينا نساء روميا كيبا نهر فرانينا نبي عليه الصلاة والسلام وحيقوا جواب يقولي مدينة هرقل تفتحها أولا مقالة هرقل أي مركو هرالة فرانية يعني القسطنطينية نبغى لا يوحى الله هرفرانية بقرطوية دي الرومانيسك مقالة اي كتلين شيء لبدا المقالة وحي كلاهايين مدي وحي هيك هلك الدين تود الله صلينيه وفاتيكان كاكو يالدي
شامبولتو هالكو دقيقة دا فاتيكان كاللوغة تالي مدنا waxa looga talinaya dawladii markaa ka talinaysa Yurubta Koonfureed iyo Afrikada Waqooyi intan Shaam oo dhan ee Romaaniska loo jiray baa looga taliya oo Constantine marka waxa la weydiinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam islaamku waa kana meel kasta uu gaari doonaaye ma magaalada dawladda laga xukumo abaan hor furanayna inta diintooda laga xukumo maalintaasi Constantine nabiga la weydiinaya waxa uu dhignayd iyadoo maanta nin muslim uu yiraahdo واشنطن غورما لا فرانيا يعني واكبر قوه في العالم تاجن مركز waxa Romaaniska akbar quwwa في العالم waa markay jabiyeen dawladii la loolamay beersiyanka loo jiray oo iyagu xoog badan yihiin kaligooda ayeen diiga ku qooqan markaas caalamka laakiin saxaabadu waxay nabiga weydiinayaan iyamaana hor furayna labada tan magaalo nabigu kaleey salaatu wasalaam ka silay magaalada madaxtooyada la hor furanaya Heraqal kiisa ayaa hor furanaysa ka macnaheedu waxa weeyaan labada magaalaba in la furan doono muslimiintu furan doona goorma la furtay isweydiinta le marka nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhintay hijriyadu markay mareysay maxay 10 sanadood taariikhda hijriga markay 10 mareysay ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam la oofsaday oo geeriyooday saxaabada iyo muslimiinta waxay isku dayeen ballankii bishaaradu nabigu uu bishaaro qaaday ay fuliyeen dabeetana dagaaladii waa soo socdeen waxa la isku dayay la furto dhowr iyo 10 saxaabi baa ku aasan maanta Istanbul oo furashadeedii isku dayay laakiin laba furanin goormay muslimiintu furteen waxa furtay الدولة العثمانية محمد الفاتح ninka loo bixiyay baa furtay goormuu furtay 850 markay hijriyadu mareysay يعني 840 sanadood kadib geeridii nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa la furtay magaalada nabigu oo furan doonta يعني wacdigii nabigu wuxuu dhawoobay muddada inta la kadib 8 qarni iyo nus in ku dhow kadib baa la furtay waxaan leenahay wax xaqiiqo inta kalena la furan doona maadaama tuu nabigu maalintaasi tilmaamayo ahayd caasimatu akbar dawla fi العالم caasimadeedii ay ahayd oo la furtay waxa hubaala in bishaarada nabiga inteedii dambana xaqiiqoobayso oo muslimku akhiran ay furan doonaan Roma nooc doona furashadu ha noqoto markaas kaatib Francis ee dhawaan maqaal qoray markaas wuxuu yiri sanadka 2000 taariikhda markay 2000 gaadho buu yiri Francis iyo Talyaanigu oo muslimiin bay noqon doonaan bulaha يعني كاتبك فرانسيسكي wuxuu ka waramaya siday dadku diinta u galayaan ama sida tii hore ay u sii dhimay khayso iyo islaamku sidoo soo kabacayo markaas wuxuu leeyahay taariikhda markay 2000 marayso waxaan filayaa inay Fransiiska iyo Talyaanigu noqon doonaan dad muslimiin bashaayirta tilmaamaysa inay muslimiintu dib u soo noqon doontaan ma taasoo quraamaya xadiis kale imaam Ahmed uu warinayo saxiixa baa jira oo nabigu kaleey salaatu wasalaam تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها والنبي عليه الصلاة والسلام نبي نمد اللحدي إنه يشوق الدونتا انت أهلا ودونا سبحانه وتعالى إنه يشوقته دبتنا إلهي بان رفعنا ويعني وعد ضمانة عهد النبوة نبي مركو قريو ذي كدب نبي دنبو إلهي سودريا مجره عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه والنبي عليه الصلاة والسلام تأدب يدوحى أهان دون دبته خلافة على منهاج النبوة دولة كتها لسه مبدئين بالنمدة هي نوحي كيري دون تابو النبي يقول انت الله والدونين يشفته واشرتي والخلافة الراشدة يا أبي بكر يا عمر يا رجل سكتلينيه إن مركي ترتبوا النبي عليه الصلاة والسلام ويدومي دون تعينا ثم تكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه وأكو حين دون النبي عليه الصلاة والسلام بقرطوية يعني لباتوين كقار كودة وبقرطوين كي إسلامي يكدم به أعضاً كرت الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية وهلم الجرى boqortooyada noocaasiya ka dambayn doono iyana islaamiya dabeetana waxay jiri doonaan baa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay uu doono inay jirto
dictatorship baa ku xigi doona buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, kuwa madaxa idinka tuma oo dadka muslimiinta nafta isugu keena oo markaasi dariiqadii islaamiga ka weecda, kuwaas baa ku xigi doona buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay casr alkhilaafa arashid, casr nubuwa waa dhammaaday, casr alkhilaafa arashida waa dhammaaday, casr almalik alcuduud waa dhammaaday. waxaynu ku jirnaa maxay? casriguu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya inay iman doonaan kuwo jabariyo dictatorship oo dadka muslimiinta madaxa ka tuma. nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ku xigtiyey? wuxuu haddana nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, uma takunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa. mar labaad bay soo noqonaysaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, khilaafadii oo ku soconaysa calaa minhaaji nubuwa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, kii hore dib ugu noqonaysa. uma sakas, markuu halkaa mariyuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aamusay, ma sheegin markaasi wixii kasii dambeeyey. waxaan leenahay xadiidkani wuxuu tilmaamaya saddexdii dawre horeba inaynu soo maray, ama afartii kooxoodee horeba. cahdigii nebinimadu inuu dhammaaday, cahdigii khilaafada raashidkii inuu dhammaaday, cahdigii duwalkii boqortooyinka islaamiga hore inuu dhammaaday, cahdigii dictatorshipka inaynu markaasi iman ku jirno. isna wuxuu u muuqdaa inuu dhammaantii gilgilan yahay ama se dabka shidan iyo uu sii socdo. waxaan leenahay waxa ku xigi doona wuxuu yahay, waxaa ku xigi doona alkhilaafa arashida insha allah, inay calam alislaami dib ugu soo noqoto khilaafa arashida calaa minhaaji nubuwa. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix oo kale ku leeyahy, layablugana hada alamru maa balaga alleyl wاnnahaar. diinta tani waxay gaari doontaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, inta waa gaadho ee habeen iyo maalini ay gaadho. macnaheedu waxa weyaan dunidao dhan bay gaari doontaa. walaa yatruku allahu bayta madarin walaa wabar ila adkhalahu allahu hada diina bicizi caziiz aw bidulli daliil, cizan yucizu allahu bihi diin alislaam wadullan yudillu bihi lkufr. guri kasta way geli doontaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam diinta tani. laba midun bay ku geli doontaa, si sharafle way ku geli doontaa ay dadkani diinta haystaan, ama iyagoo aan rumaysnayn laakiin xukuumadda islaami ay tahay oo iyagu dulliyiin oo islaamku uu xoogan yahay bay geli doonta. waxaa jira axaadiis badan oo sheegaya ou nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo inay muslimiintu saytanadu dib ugu soo noqon doonto. masalan waxaa ka mid a xadiidka ka warramaya qisada yuhuudda. nusuusta qur-aanka waxaa laga fahmi doonaa sida ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamay yuhuudda. ilaahay wuxuu leeyahy lataclawunna fi lardi, ilahay wuxuu tilmaamaya inay dunida ku kibri doonaan maratayn, laba goor. marka hore waxaan idin diri doonaaba ilahay leeyahy qaar idin baabiyo, ficlan way dhacday. marka dambena waa kibri doontaan ba ilahay leeyahy subxaana watacaala. marka dambe intaanay kibrin ilahay wuxuu ku tilmaamaya waqatacnaahum umama, in la kala googoyn doono ay filqi doonaan. yuhuudda ma jirto malaa wadan dunida ku yaala ilaa jaaliyad yar iyo wuxuunbaa ka degan waa la kala filqiy. ilahay wuxuu tilmaamaya marka dambe aan idin halaagi doono, faida jaa wacdu alaakhirati ji'naa bikum lafiifa. waa idin soo ururinayaaba ilahay yihi ballanka dambena markaan idin qaadayo. maanta yuhuudda caalamka oo dhan meel baa loo wadaa, waa la ururinaya, meel kasta waa ka hijroonayaan oo dhan baa loo sii wadaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu tilmaamaya, waa nusuus qur-aana kuwaan idin tilmaamaya. nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis saxiixa ku tilmaamaya, waxaa dhici doonta buu leeya inay muslimiintu iyo yuhuudda ay ku kulmi doonaan waadi urdun, oo qolina berigiisa ay joogto qolina galbeedkiisa, oo dabeetana la jebin doona buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam yahuudda. oo kadibna uu odhan doona buu yidhi geedkay ku gabadaan iyo dhagaxay galaanba, xataa yaquula ashajar waalxajar buu nabigu leeyay, ilaa iyo geedka iyo dhaguxuba ay ka yidhaahdaan yaa muslim yaa cabdallah hada yahuudiyun waraa'i tacaala faqtulhu. ilaahay addoonkiisiiyo muslimow kaala yahuudi baa dabadayda ku jira adishay. ilaa idkhirka mooyaane, shajaratu lgarqad mooyaane buu nabigu leeyay, geedka qarqadka la yidhahdo mooyaane inta kale. ficlan yahuudi waxay dhab u beertaa hadda geedka qarqadka la yidhaahdo. geedkuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam ma sheegi doono, si dhaba bay u beeraan hadda, waa dhirta ugu badan ee laga beero maanta Israel. laakiin nabigu ma odhan, waxaa la odhan doonaa yaa qowmi alcarabiya tacaali waraay yani fulan faqtulhu. wuxuu nabigu leeya waa markay dhacdo yaa muslim yaa cabdallah, ka jabinaya maaha qoomiyada carbeed iyo nuwaxaasi, waa maray joogaan maxay
dad muslimi yaa muslim yaa cabdallah dad qiray ilaahay addoonnimadiisa amase islaamnimo u hogaansanaaday waxaan leenahay waa soo noqonayaa islaamku taasi waa hubaal muranna kuma jiro islaamku wuu soo noqonaya muranna kuma jiro inuu soo noqonayo qoraar reer galbeed ah waa tuwaynabi qoraaga la yidhaahdo waa qoraa taarikhiyana aada u macruuf ah arnold tuwaynabi waddanka ingiriis u dhashay ayaa wuxuu galay lecture la yidhaahdo alislaam walmustaqbal muxaadar u jeediyey markaasu wuxuu ka warramaya alislaam walmustaqbal islaamka iyo mustaqbalka nolosha adduunka wuxuu weedhihiisa ka mid ah tarjumo carabiya haddaan ku akriyo ina alislaama curda lian yasxu min jadiid ويتسلم قيادة الأمم المستضعفة الخاضعة للنفوذ الغربي في الوقت الحاضر. الإسلام كوحي أبني على إلو البرارو مرضا ببوش أو قبطوه جانكا ومدها اللي قميشته إما أنت هوتي مادة نفوذك دول كرار قلبات. هذا الكتاب في وسط ثم يقول مرقسوح عدنيري إن الإسلام اليوم في غفوة طويلة ذاتك مسلمين تقول ما أنت فردا دير بكشران بولي تشبه غفوة أهل الكهف فردا يكشران بولي تاريخيا كان وحي وأكتهي نومضي يكتحدين أهل الكهف فإن قلنا قصة قرآن كسائر وريي ونمن أهل الكهف الله إذا سورة الكهف كسائر ربطي وصدح بغلاص نهردي انت يقام قميستين وقالا كعررين قدس قالي سيحدي إلهي سيحيي دور بغلاص نهردي هردي markaasuu wuxuu leeyahay gaalkan reer galbeed oo ingiriis muslimiintu waxay u ban yaalin buu yidhi inay baraarugaan oo dunida ay dib u hogaamiyaan oo umamka kan reer galbeedka hoos yimaada ay ka baxaan oo iyagu ay hogaamiyaan laakiin buu leeyahay maanta waxay ku jiraan muslimku hurdo aada u dheer buu leeyahay oo lamida buu leeyahay si ay ku jireen ahlu kahfku walakina aduruuf alcaalamiya yumkin an tuuqiduhu buu laakiin waxaan ka cabsi qabaa buu ninkani leeyahay dhibaatooyinka adduunka ka jira inay ninkan hurdo